dadka waxaa filan waa ku noqotay in eygani dadka isbaara u dhigtay waxay damceen inay eyga qabtaan balse waa uu ka cararay isagoo oo doonayay in la dabagalo waxay daba socdeen wax ka badan 3 saacadood barafka dushiisa iyaga oo ku soconayay balse markii ay gaareen meeshii uu u horkacayay ayay waxay ku arkeen wax yaab leh oo ka wada nixiyay habeen ka mid ah habeenada aadka u qabow dadka ayaa ku toosay cod dhawaaqaya oo hurdada ka qasay dhawaaqaasi waxa uu ahaa cida ay si aad u xoogan u ciyaya qayladan aan kala joogsiga lahayn dadkii tuuladu waxay damceen inay aamusiyaan eyga waayo waqtigu waxa uu ahaa saq dambe ayaguna hurdo ayay u baahnaayeen balse cida eygu way sii sare kacaysay ilaa markii dambe dadkii tuuladu ay eygani aad uga xanaaqeen markii hore waxay u maleeyeen inuu gaajaysan yahay sidaas darteed waxa ay siiyeen hilib si uu bal'aam u aamuso wax yar balse waxa uu sii watay qayladiisii waayo sababtoo uu qaylinayayba ma aysan ahayn gaajahaysa dhalinyaro xoogan ayaa isku dayday inay cabsi galiyaan tuuladana ka fogeeyaan balse markii ay ceyriyaan waa soo laabanayay kamana uusan cabsan markii dambe waa ay ka qoosteen dadkii tuuladu waxa ayna iska wateen hurdadooda balse waxa cajiib ku noqotay in ay tooseen subaxnimadii isagoo oo wali qaylinaya waayo aydu subaxnimada tuuladan ma qaylin jirin waqtiyada ay ugu aamuskan badan yihiinba weeye mid ka mid ah dadkii tuulada ayaa dareemay arrin shaki weyn ku abuurtay waxa uu arkay in eyga qoortiisu ku xiran tahay silsilad ayna muujinayso inuu qof lahaa markaas ayay fahmeen dadkii tuuladu in arrin khatar ah ay ka dambayso qaylada joogtada ah ee eyga waxayna ogaadeen in eygu rabo in la raaco oo uu wax soo tusiyo qaar ka mid ah dadkii tuulada ayaa si mutadawacnimo ah eyga u raacay waxayna go'aansadeen in ay ogaadaan waxa uu qarsoon balse raacidda eygan ma aysan ahayn arrin sahlan marnaba waayo dhulka dhan waxaa daadsanaa baraf jawiguna waxa uu ahaa mid aad u qabow aadna u adag waxay ahaayeen kuwa lugaynaya muddadaas oo dhan eyga dabadiisa jawiga oo weliba xun sida ay ula socdeen ugu dambayn saacada kadib waxay soo galeen kayn jiq ah oo laga guuray waxay dareemeen cabsi waayo kayntaasi waxaa ka buuxay xayawaan khatar ah oo hilib cun ah bari horena waxaa ku dhintay dad kaynta dhexdeeda waayo way ku dhex habaabeen waxay arkeen eygii oo geed inta dhankiisa istaagay qaylo bilaabay markii ay dul tageen geedkii ayay waxay ku arkeen wax aad uga nixiyay waxay arkeen gabar 3 jir ah oo koomo ku jirta kuna gandoodsan geedka gadaashiisa si degdeg ah ayay ula carareen waxayna geeyeen tuulada dhakhtarkii markii la geeyay nasiib wanaag waa ay noolayd kaliya koomo ayay ku jirtay dhakhtarkii ayaa sheegay in haddii ay saacado dib u dhici lahayd hadda ay ahaan lahayd mid geeriyootay markii dambena waxaa caddaatay in gabadhani ay dhaleen qoys ka mid ah qoysaskii tuuladan deganaa sababta kaliftay gabadhan inay lunto ayaa ahayd maalin ayaa gabadha aabaheed waxa uu u safray tuulo kale oo daris la ahayd tuuladooda gabadh yarta ahayd ayaa aabaheed aad ugu xiistay waxayna qaaday wadadii aabaheed horay u qaaday waxay iska eegtay hooyadeed markii ay aragtay in ay baraad la'dahay ayay ka faa'iideysatay kanshahaas yar ee ay heshay waxay baxday kaligeed eygii ayaa arkay gabadhii oo baxaysa isna waa dabagalay gabadhii waxa ay ku luntay kayntan oo ah mid aad u khatar ahayd oo aad u weyneed waxay istir ku soo laabo guriga haddana waxay ku sii halowday kayntii waxayna bilowday inay iska oydo waxay kayntaas ku dhex jirtay 11 maalmood balse nasiib wanaageeda waxay cuni jirtay miraha toodka loo yaqaano sidoo kale waxay biyaha ka cabi jirtay wabiga kaynta dhex mara jixdimihiisa eygeeduna waxa uu ka celin jiray xayawaanada khatarta ah waxa uuna ka difaacay xayawaanka la yiraahdo madax kutida oo ah nooc ka mid ah yeyda balse halista gabadhu ay ku jirtay ayaa ahayd dhaxanta iyo qabowga daran ee ay mandaqadu lahayd sidaas darteed waxay qabow ka raadin jirtay dhogorta eyga ee faraha badan bal in ay wax yar oo kuleyl ah ka hesho nasiib darro 10 maalmood oo ayay adkaysatay kadib maalinkii 11aad ayay kooma gashay markaasina eygii ayaa waxa uu ku qariyay caws dhexdiis gabadhii waxa uuna u soo cararay si uu dadka ugu sheego mixnadan inkastoo uu dib badan ka maray si ay dadku u fahmaan ugu dambaysa waa uu ku guuleystay waxa uuna awooday in uu tusiyo meeshii ay gabadhu jiiftay in aysan gabigeeduba barafoobin geesinimada eygani waxa uu sabab u noqday in isaga sababtiisa ay maanta gabadhani u nooshahay waxaan aaminsanayn in gabadheenu sidaas nooga tagtay dib dambana aanan u arki doonin balse waxaa dhacday arrin mucjiso ah